السلام عليكم دمانتين ولا الله وأمال عبد الله فين كنتو مركا waxaan rabay maanta xoogaa qiso inaan idila wadaago wiil baa ila soo sheer gareeyay walaalkeena ku nool gobolka Oregon oo aniga runtii ii dhowa oo Mareykanka ah wiilkaasi sheeko aan la yaabay ayuu ii soo sheegay marka waan weydiiyay waxaan ku yiri ma la sheer gareyn karaa dadka public ah wuxuu igu yiri ha laakiin magaciisa ma sheegayna iyo detailska noloshiisa ma garayna laakiin wax jara ahaan ayaan ka hadlaynaa isagoo ku saabsan wiilkan wuxuu yiri maalay ajlaada waan dhageystaa waan ku taageersanahay laakiin wuxuu yiri arrin ayaa ay haysata arrintana waxaan u arkaynaa inaan adiga ku sheego bal maadaama tahay feenka dumarka bal inaad wax igala qabatin wuxuu yiri waxaan ahay buu yiri wiil afar ciyaal ayaan leeyahay buu yiri muddo waxaan guri lahaa buu yiri 5 sano hadda aad ayaan u jecelahay buu yiri xaaskayga laakiin waxaa dhacday buu yiri marar badan in ay ahayd hobbigayga ama inaan jecelahay badanaaba inaan gabdhaha kale u sheekeeyo anigoo xaasiya guri laayaan jeclaa buu yiri inaan gabdhaha kale ee madaxa banaan u sheekeeyo shukaansada buu yiri taasna waxay igu khasabtay buu yiri waxaan ahaa buu yiri oo aan ahay buu yiri weliba nin taraagla ah oo Mareykan taraaga weyn ku wada oo maaragtay gobollo badan u kala socda marka maadaama xaaskayga iyo hurdaan iyo ilmahayga marar badan waxaan u baahdaa buu yiri qof telefoonku igula jira oo aan ku soo jeedo oo wadada ku maro marka waxaan jeclaystay buu yiri oo ii macaanaatay buu yiri gabdhiyaan u sheekeynayay jacayl sheekadoodii anoo buu wuxuu yiri gurna ka rabinin sheekadoodana aan ogahay inaanan guri ku dhisaynin laakiin haddana wadada ayaan ku mariyay buu yiri muddo 5 bilood ka hor waxay igu dhacday buu yiri in islaantaydii xaaskaygii ay ogaatay buu yiri gabdhihii aan la sheekaysan jiray oo warkii loo sheegay wuxuu yiri wiilku sheeko dheer buu galay wuxuu yiri markaan gurigeyga iimaanay buu yiri aan wadada ka imaado aan sudcaalka ku maqanahay buu yiri gurigeyga markaan imaado buu yiri waxa la sameyn jiray buu yiri cunto wanaagsan waa la soo dhaweyn jiray buu yiri wuxuu yiri habeenkii haddaan ku soo qornahay imaanayo ilmaha wuxuu yiri way sigi jireen reerkii oo dhan wuxuu yiri jacayl baa lagu soo dhaweyn jiray buu yiri wanaag oo gurigii la bedelay cuntadii diyaara ilmihii oo faraxsan xaaskii faraxsan wuxuu yiri waa la sii diyaar garoobi jiray markaan soo socdo runtii wuxuu yiri maalmahan dambe maadaama oo gabadhii maqashay inaan gabdho kale u sheekeeyo niyad jab ayaa ku dhacay buu yiri kalsooni la'aan ayaa timid buu yiri wuxuu yiri hadda guriga ama maqnow ama joog yaabay kala og buu yiri taas anaa isku keenay buu yiri wuxuu yiri maxaa taas aad iga sheegi lahayd buu yiri horta runtii aniga amaal ahaan qof walba waqtiga sax ilaahay meel buu ka geliya qof walbana siduu wax u arkaa dad badan oo daawanayo maaragtay cashilka daawanayo waxa laga yaabaa inay si kale wax u arkaan laakiin waxaan u soo qaatay keyskan waan ogahay wiilasha badan ee Soomaalida wiilal badan oo kamid ah inay jiraan wiil kan oo kale let me say it again yani wiilal niman badan ayaa waxaan ku dhaqma oo iyagoo xaas leh oo guri leh oo kalsooni haysta oo wanaag haysta oo jacayl haysta oo ilmo haysta oo guri fiican haysta runtii ayay waxay sameeyaan gabdho kale la sheekaystaan iyagoo guri dhisaynin iyagoon sheeko kala hayn yani hobby ahaan inay wixii u noqoto oo gabar kale ay mustaqbal dhisaan marka u horeysa waxaan ku sheegay walaalow haddii adiga sheekadan kugu tahay wada ku mar iyo haddii kugu tahay waqti ku daalis iyo saamaleel iyo soo jeed adigu haddaad gabadhan ka rabtay u sheekeynaysid ogow in aad khiyaamo ku jirtid ogow in aad dambi ku jirtid waayo waxa laga yaabaa gabadhan aad sheekaysanaysaa oo u sheekeynaysaa in iyadu rabto guri in adigu ka celinaysid guri kale oo wiil kale la dhisan lahayd oo la sheekaysanay in adigu ka hortaaganto ka celinaysid maadaama oo aad sheegin aad xaas leedahay maadaama oo aadan u sheegin qofkan inaadan dan kala hayn oo dad ku maraysid maadaama oo intentionkaaga aadan qofka u sheegin qofkana uu kula sheekaysanayo si niyad uu kula sheekaysanayo waxa runtii la arkaa inaad taa dambi ku jirtid khiyaamana ku jirtid adiga ilaahay marka hore toobad keen waayo gabdho badan hadda saas ugu soo sheekaysay oo aad been u sheegi jirtay adoo xaas iyo guri leh aad wadada ku mari jirtay u soo saamaleeyay jirtay taas khiyaamo weyn oo dhinaca ka timid oo aad dambi ku gashay weeyaan taas adiga ilaahay been dhextaala inaad ka toobad keentaa talabaad waa inaad ogaataa dumarku inaysan ahayn wax adiga maaragtay aad saadunta ka yeeri kartid wada ku mari kartid oo hadalkaaga dumarku ma aha saas dumarku way ka qiimo badan yihiin saas ma aha inaad adigu aragtid
you know waxaad adigu saadontu isticmaali kartid gabar baan la sheekaystaa oo hobbigayga macnahaagu maxaa uga jeedaa camal hobbigayga because haddii aad xaas leedahay haddii aad nintahay guri leh had tahay taas waxay sheegaysaa inaad committed tahay inaad qof jeceshay inaad qof guri la samaysatay marka inaad gabdhaha kale ka daba ururidid oo aad u sheekaysid waxay taas ku tusaysaa inaad weli qalbigaagu caruur yahay inaadan ahayn nin mas-uul qaadi kara in aad khiyaamo low aad tahay oo aad gabdhihii u isticmaalisid waxaad adigu ka rabtid inay ku qabtaan haddana taas ka sokow gabadhaadii xaaskaagii hadda markay wixii maqashay waad kula yaabanta waxaad leedahay cunto layma sameeyo gurigii layma sii diyaariyo layma soo dhaweeyo maxaad filanaysa I mean you know I hate to say it this but I think you're stupid I mean gabadhaadii baa loo soo sheegay inaad gabadh kale la sheekaysatid niyadeedii meel kaga dhacday runtii kalsoonideedii baad jebisay kalsooni la-aan ayaad ku abuurtay maskaxdeedii baad waxaad gelisay qayliyo buuq okay haddeen waxaad rabtaa in lagu soo dhaweeyo wanaaga ugu soo dhaweeyo gurigii lagu sharfiyo nin lagu sii hagaajiyo I think it's stupid and a lot of men are stupid by thinking that because qof markaa waxaa ku samaysid weliba xaaskaaga haddaad waxaan oo kale aad ku samaysid gabadh kale la sheekaysid ood ka maseyrsid oo dhibaato kale aad ku samaysid welina aad maskaxdaadi leedahay oh you know aad la yaaban tahay waxaan maseyrkan iyo waxaan ay ku abuuran la yaaban tahay يعني waxay taas waxa ku tusaysaa nacasnimada nimanka qaar ku jirta oo aysan u dareemin gabadhu inay tahay gabar maaragtay feelings leh ama dareemayaal leh qof bini aadan ay tahay aysan dareensanayn saddexaad aan ku sheegi lahaa weeyaan horta waxaa la yidhi shimbir duulduul badan baa la yidhi afle wax bay gashaa horta u malayn maayo mar dambe gabadh dambe u sheekayso wadda ku marmartay inay hobbigaaga noqon doonto ama ay noqon doonto wax maaragtay aad fudayd u gashid u malayn maayo inay dib kugu dhici doonto waayo shimbir duulduul badan afle wax bay gashaa maanta waa lagu soo qabta xaaskaagiina way ku ogaatay waa kaasaa noloshaadiina waad ka dareentay maaragtay qalalaaso soo galeen laakiin ta aanu kugula talinahay waxa weeyaan marka koowaadii xaaskaaga waqti ay u baahan tahay waayo dhala haddaad jebisid qobadha maskaxdeeda waa dhalo weeyaan haddii aad kalsoonideedii ku ciyaartay oo aad gabdho kale la sheekaysatay oo aad adigu keentay kalsooni la-aan iyo khiyaamo weliba aad keentay fiiri diinta islaamka saas ma ogola nimankii waxay ka dhigteen diinta islaamka waxay ka dhigteen go ay saaranayaan dusha saaranayaan oo wax walba diinta ku sheegayaan diinta khiyaamada ma ogola gabadhaada inaad khiyaamisid ma ogola gabdho kale inaad been u sheegtid ma ogola gabdho kale inaad waddo ku martid ma ogola waxyaabahaasoo dhan diinta ma ogola nimanku yaysan diinta ku gabanin oo diinta daba fariisan khiyaamadan iyo qashinkana waa diin iyo wasaqnimadan nimanka Soomaaliya qaar ay ku dhaqmaan diintu ma ogola ilaahay been ha ka sheegin nin baa hadda wadankii ka tagaya wuxuu u tagaya inuu hooyadii soo salaamo inuu ehelkiisa soo salaamo lacagtii buu hoosta gashanaya tiirkii buu hoosta gashanaya gabadh baa ku soo guursanaya khiyaamo sameynaya xaaskiisu ma sheegayo reerkiisa buu diminaya hadhow gabadhii miskiinta ahayd ee uu soo guursaday uu og yahay in ay markii hore waa wixii kuntan jira 60 jira ay ku gashay gaajo ay ku gashay wadankii ayna guursan lahayn hadday wili ay haysan lahayd opportunity iyo hadday haysan lahayd dhaqaale iyo haddii wadanku fiicnaan aysan guursan lahayn buu haddana hadhow markuu yimaado halkan ayuu furaya oo haddana hadhow gurigeeda diminaya oo iyadii carma ka dhigaya labadiiba wuxuu ka galay dib uu ka gala marka diintu saas ma ogola diinta ku daba maaragtay ku daba haas ku qaranina dabadeeda khiyaamadani waxaan la joojiyay laakiin adigu haddaan u soo noqdo arrinta ada wiilka maanta sheekada noqosayso waxa weeyaan waqti si islaamta aad xaaskaaga adiga ayaa dhibka keenay adiga gabdho la sheekaystay adiga ayaa kalsoonideedii dumiyay marka waa inaad adigu hawl badan gelisaa si aad u soo celin lahayd kalsoonidii inaad wanaagiisa u soo celin lahayd iyada uga keensan lahayd waana waqti badan gelisaa waana iyada waqti siisaa waa in aad caddaysaa mar dambe inaad waxaa samayn doonin inaadan gabdho waddada ku mari doonin inaadan kalsooni waxaad tiri hadda 5 sano qabnaa 4 ciyaar aad iska leenahay waa miskiin maalin walba uur leh oo walaca oo rafaadsan waayo hadda 5 sano qabteen 4 ciyaarna ku leedahay inta wadada saaran tahay gabdhaha daba ordisay dayuusiyo beenta u sheegaysid gabdhaha iyana uur beelahay guriga adeeg joogtay oo wanaag bay ku geysay saad u sheegtay in wanaag ku geysay inay guriga ku shaqeysay in ilmaha ku sii diyaarisay jacayl ayuu inta soo ku wahaysay waa kaas jacaylkii ilmaha waa tuurtay in qalbigeedu waxa soo galisay masayr waxa soo galisay kalsooni la'aan adigii waa taas maanta kabashtii adiga dhamaatay hadda waa kaas in faa'iido walaal macaan iisha waxa faa'iido baa hadda waxa laali waxa faa'iido ma laha laakiin hadda waxa looga baahan yahay inaad shaqaysid inaad kalsoonida soo celisid inaad waqti siisid inaad gabdhaha kale ee banaanka ka jooga been u sheegin taraagana haddii maaragtay aad isleedahay dib ugu keenay guriga ugu diinaya
ay taxiga raac marka waayeen oo taxiga waa raacay soo sameeyay jirtay taas khiyaamo weyn oo dhinaca ka timid oo aad dambi ku gashay weeyaan taas adiga ilaahay in dhextaala inaad ka toobad keentaa talabaad waa inaad ogaataa dumarku inaysan ahayn wax adiga maaragtay aad saadunta ka yeeli kartid oo wada ku mari kartid oo hadalkaaga dumarku ma aha saas dumarku way ka qiimo badan yihiin saas ma aha inaad adigu aragtid waxaad adigu saadunta isticmaali kartid gabar baan la sheekaystaa oo hobbigayga macnahaagu maxaa uga jeedaa camal hobbigayga because haddii aad xaas leedahay haddii aad nintahay guri leh tahay taas waxay sheegaysaa inaad committed tahay inaad qof jeceshay inaad qof guri la samaysatay marka inaad gabdhaha kale ka daba ururidid oo aad u sheekaysid waxay taas ku tusaysaa inaad weli qalbigaagu caruur yahay inaadan ahayn nin mas-uul qaadi kara in aad khiyaamo low aad tahay oo aad gabdhihii u isticmaalisid waxaad adigu ka rabtid inay ku qabtaan haddana taas ka sokow gabadhaadii xaaskaagii hadda markay wixii maqashay waad kula yaabanta waxaad leedahay cunto layma sameeyo gurigii layma sii diyaariyo layma soo dhaweeyo maxaad filanaysa I mean I hate to say it this but I think you're stupid I mean gabadhaadii baa loo soo sheegay inaad gabadh kale la sheekaysatid niyadeedii oo meel kaga dhacday runtii kalsoonideedii baad jebisay kalsooni la-aan ayaad ku abuurtay maskaxdeedii baad waxaad gelisay qayliya buuq okay haddeen waxaad rabtaa in lagu soo dhaweeyo wanaaga ugu soo dhaweeyo gurigii lagu shaqeeyay iyo hurdaan iyo ilmahayga marar badan waxaan u baahdaa buu yidhi qof telefoonku igula jira oo aan ku soo jeedo oo wadada ku maro marka waxaan jeclaystay buu yidhi oo ii macaanaatay buu yidhi gabdhihii aan u sheekeynayay jacayl sheekadoodii anoonba wuxuu yidhi guurna ka rabinin sheekadoodana aan ogahay inaanan guri ku dhisaynin laakiin haddana wadada ayaan ku mariyey buu yidhi muddo 5 bilood ka hor waxaa igu dhacday buu yidhi in islaantaydii xaaskaygii ay ogaatay buu yidhi gabdhihii aan la sheekaysan jiray oo warkii loo sheegay wuxuu yidhi wiilku sheeko dheer buu galay wuxuu yidhi markaan gurigayga imaanaya buu yidhi aan wadada ka imaado aan sodcaalka ku maqanahay buu yidhi gurigayga markaan imaado buu yidhi waxaa lay samayn jiray buu yidhi cunto wanaagsan waa lay soo dhaweyn jiray buu yidhi wuxuu yidhi habeenkii haddaan kusoo qornayo imaanayo ilmaha wuxuu yidhi waa isugi jireen reerkii oo dhan wuxuu yidhi jacayl baa laygu soo dhaweyn jiray buu yidhi wanaag oo gurigii la bedelay cuntadiioo diyaara ilmihiiyo faraxsan xaaskii faraxsan wuxuu yidhi waa laysi diyaar garoobi jiray markaan soo socdo runtii wuxuu yidhi maalmahan dambe maadaama oo gabadhii maqashay inaan gabdho kale u sheekeeyo niyad jab ayaa ku dhacay buu yidhi kalsooni la-aan ayaa timid buu yidhi wuxuu yidhi hadda guriga ama maqnow ama joog yaabay kaloog buu yidhi taas anaa isku keeni buu yidhi marka wuxuu yidhi maxaa taas aad iiga sheegi lahayd buu yidhi horta runtii aniga amaal ahaan because qof walba waqti maskaxda ilaahay meel buu ka geliya qof walbana siduu wax u arkaa dad badan oo daawanayo maaragtay cashirka daawanayo waxaa laga yaabaa inay si kale wax u arkaan laakiin waxaan usoo qaatay kayskan waan ogahay wiilasha badan ee soomaalida wiilal badan oo ka mid ah inay jiraan wiilkan oo kale let me say it again yani wiilal niman badan ayaa waxaan ku dhaqma oo iyagoo xaas leh oo guri leh oo kalsooni haysta oo wanaag haysta oo jacayl haysta oo ilmo haysta oo guri fiican haysta runtii ayay waxay sameeyaan gabdho kale la sheekaystaan iyagoon guri dhisaynin iyagoon sheeko kala hayn yani hobby ahaan inay wixii u noqoto oo gabar kale ay mustaqbal la dhisaan marka u horeysa waxaan kuu sheegay walaalow hadday adiga sheekadan kugu tahay wada ku mar iyo hadday kugu tahay waqti ku daalis iyo saamaleyl iyo soo jeed adigu haddaad gabadhan ka rabtay u sheekaynaysid ogow in aad khiyaamo ku jirtid ogow inaad dembi ku jirtid waayo waxaa laga yaabaa gabadhan inaad la sheekaysanaysaa ood u sheekaynaysaa in iyadu rabto guri in adigu ka celinaysidba guri kale oo wiil kale la dhisan lahayd oo la sheekaysanay in adigu ka hortaaganto ka celinaysid maadaama oo aadan sheegin inaad xaas leedahay maadaama oo aadan u sheegin qofkan inaadan danka lahayn oo dad ku maraysid maadaama oo intentionkaaga aadan qofkan u sheeginin qofkana uu kula sheekaysanayo si niyada uu kula sheekaysanayo waxaa runtii la arkaa inaad taa dembi ku jirtid khiyaamana aad ku jirtid adiga ilaahay marka hore u toobad keeno waayo gabdho badan haddaad saas ugu soo sheekaysay oo aad been u sheegi jirtay adoo xaas iyo guri leh aad wadada ku mari jirto السلام عليكم دمانتين ولا الله وأمال عبد الله فينك دمرك وحارب ما أنت حاجة قصة إن إذا لو ذاقو ويل بايلا سو شير كريي ولا لك إنه كنا قبل كا أوريغان أو أنا قرنتي إيدوا
oo Mareykanka ah wiilkaasi sheeko aan la yaabay ayuu ii soo sheegay marka waan weydiiyay waxaan ku yiri ma la share gareyn karaa dadka public ah wuxuu igu yiri ha laakiin magaciisa ma sheegayna iyo detailska noloshiisa ma garayna laakiin wax jara ahaan ayaan ka hadlaynaa isagoo ku saabsan wiilkan wuxuu yiri maalay ajlaada waan dhageystaa waan ku taageersanahay laakiin wuxuu yiri arrin ayaa ay haysata arrintana waxaan u arkaynaa inaan adiga ku sheego bal maadaama tahay feenka dumarka bal inaad wax igala qabatin wuxuu yiri waxaan ahay buu yiri wiil afar ciyaal ayaan leeyahay buu yiri muddo waxaan guri lahaa buu yiri 5 sano hadda aad ayaan u jecelahay buu yiri xaaskayga laakiin waxaa dhacday buu yiri marar badan in ay ahayd hobbigayga ama inaan jecelahay badanaaba inaan gabdhaha kale u sheekeeyo anigoo xaasiga guri laayaan jeclaa buu yiri inaan gabdhaha kale ee madaxa banaan u sheekeeyo shukaansada buu yiri taasna waxay igu khasabtay buu yiri waxaan ahaa buu yiri oo aan ahay buu yiri weliga nin taraagla ah oo Mareykan taraaga weyn ku wada oo maaragtay gobollo badan u kala socda marka maadaama xaaskayga ilmihii lagu sii hagaajiyo I think it's stupid and a lot of men are stupid by thinking that because qof markaa waxa ku samaysid weliba xaaskaaga haddaad waxaan oo kale aad ku samaysid gabar kale la sheekaysid oo ka maseersiiso dhibaato kale aad ku samaysid welina aad maskaxdaada leedahay oo aad la yaaban tahay waxaan maseerkan iyo waxaan ay ku abuuran la yaaban tahay yani waxay taas waxa ku tusaysaa nacasnimada nimanka qaar ku jirta oo aysan u dareemin gabadhu inay tahay gabar maaragtay feelings leh ama dareemayaal leh qof bini'aadan ay tahay aysan dareensanayn saddexaad aan ku sheegi lahaa weeyaan horta waxaa la yidhi shimbir duulduul badan baa la yidhi afle wax bay gashaa horta u malayn maayo mar dambe gabar dambe u sheekayso wadda ku marmartay inay hobbigaaga noqon doonto ama ay noqon doonto wax maaragtay aad fudayd u gashid u malayn maayo inay dib kugu dhici doonto waayo shimbir duulduul badan afle wax bay gashaa maanta waa lagu soo qabta xaaskayga way ku ogaatay waa kaasaa noloshaadiina waad ka dareentay maaragtay qalalaasa soo galeen laakiin ta aanu kuula talinahay waxa weeye ma marka koobaadii xaaskaaga waqti ay u baahan tahay waayo dhala haddaad jebisid qobadha maskaxdeeda waa dhalo weeyaan haddii aad kalsoonideedii ku ciyaartay oo aad gabdho kale la sheekaysatay oo aad adigu keentay kalsooni la-aan iyo khiyaamo weliba aad keentay fiiri diinta islaamka saas ma ogola nimankii waxay ka dhigteen diinta islaamka waxay ka dhigteen go ay saaranayaan dusha saaranayaan oo wax walba diinta ku sheegayaan diinta khiyaamada ma ogola gabadhaad inaad khiyaamisid ma ogola